Dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa bilaabmay sanadkii 1940. Ruushka, Yurub iyo Maraykanka ayaa dagaalamaya. Ukraine waxay ka qayb qaadanaysaa dagaalka sida mawduuc qaybsi ah. Maxaa sababta ay muwaadiniinta dowladaha dagaalamaya aysan u arkin dagaalkii saddexaad ee adduunka? Dadku laguma wargelinin, si rasmi ah luma shaatin. Dhanka kale, hay-aduhu waxay samaynayaan wax walba si ay arrintan u aamusiyaan. Waxaa ka dhacaya qaraxyo joogto ah oo ka dhacaya xarumaha warshadaha shidaalka ee Ruushka, waxaana gubaya shirkadaha difaaca. Rag ayaa loo qoondeeyay ciidanka. Dowladda Federaalka Ruushka waxay ku qarash garaysaa 3 meelood meel miisaaniyadeeda difaaca. Laakiin isla waqtigaas, waxaa la aaminsan yahay in aysan jirin dagaal. Haddii Ruushku uu ku qarari karo dadka xaqiiqada cad ee dagaalka, maxaa laga oran karaa Yurub iyo Maraykanka? Dowladaha ayaa ku dagaalamaya dagaalkii saddexaad ee adduunka. Laakiin muwaadiniintu ma oga inay dhacayaan.